ardada saddex dufcadood ee dhigata macadka caafimaadka xarunta gobolka Sool ayaa waxay gaadheen deegaanka kala baydh iyagoo halkaasi ka fulinaya baraarujin dhanka caafimaadka oo ay ugu talagaleen ardaydaasi in kor loogu soo qaado dadka deegaankaasi degan. Ardayda ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan sidii loogu sheegi lahaa talooyin caafimaad oo ay soo jeedinayaan dhalinyaradan iyagu dhigata macadka caafimaadka ku yaala xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood, iyadoo halkaasi ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan iyo mas'uuliyiinta deegaanka kala dhanka waxbarashada caafimaadka, iyadoo dadkii halkaa ka soo qayb galay ay ka mid ka ahaayeen Caaqil Carab Axmed Xirsi, Cabdiqaadir Jaamac Bare, gudoomiyaha waxbarashada Maxamed Miig Sugaal oo isaguna ka socday ururka Kaylo oo dhisan deegaanka kala baydh. Waxaa isaguna sidoo kale halkaasi hadal dhaxalgale ka soo jeediyay Ibraahin Iila Ducaale oo ah gudoomiyaha sekondariga deegaanka kala baydh. Geesi kale waxaa iyaguna munaasabadaasi goobjoog ka ah Maxamed Xidig oo ka mid ah xanaanada xoolaha ee deegaankaasi, Ibraahin Yuusuf Awnuur, gudoomiyaha caafimaadka deegaankaas oo isagu xudun u ahaa in la wacyigeliyo dadka deegaankaasi ku dhaqan. waxaa iyaguna halkaasi ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan iyo haween iyagu ka kala socda degmada kala baydh oo si weyn uga qayb qaadanayay baraarujintan ay sameynayeen macadka caafimaadka ee ku yaala xarunta gobolka Sool. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay Cabdixakiin Cawil Xuseen oo ka mid ah ardayda macadka caafimaadka, sheegeen ujeedooyinka ay u socdeen. muhiimadda aan u soconay horta waxay ahayd wacyigelin iyo xaaladda caafimaad ee ka jirta degmooyinka, laakiinse nooma suurtagelin inaan degmooyin badan tagno. waxay ku koobnayd un tan, laakiin caafimaadku waa kaalinta ugu muhiimsan ee bulshada. caafimaad markaynu leenahay waa waxa kaliya qofku hadduusan caafimaad haysan ma socon karo, ma shaqaysan karo, waxna ma qabsan karo. maadaama aynu waxyaalaha qaar aysan moodin inay caafimaadku yihiin ayaa dadka qaar u haystaan waxyaalo yaryar oo aan macno lahayn. haddii marka lagu leeyahay faraxalka oo kale oo waxa ugu muhiimsan bulshadeennuna aad uguma dheerayso, kadibna halka cudurro badan baa qofka waa silsilada koobaad ee cudurku ku yimaado. haddaba waxaanu doonaynaa inaan dhalinyarada iyo odayaasha iyo dhammaan bahda caafimaadka ee degmada baaraan aanu doonayno inaanu dhinaca caafimaadka kala shaqeyno, iyaguna ay na soo dhaweeyaan. haddana siday noo soo dhaweeyeen waana ku soo laaban doonaa. haddana waxaan doonayaa maadaama waqtiga oo kooban u mahad celinayna ciddii nagu kharash garaysay ama nagu support garaysay soo tegitaankeega iyo ardaydii iyo macallimiinta maxadkaba waanu mahad celinayaa iyo dhammaan ciddii kale ka qayb qaadatay. geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Cismaan Iimaan oo ka mid ah macallimiinta iyagu wax ka dhiga macadka caafimaadka ee ku yaala xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. caafimaadkana inaanu wax badan idinka sheegno waa mid waajib oo anagana saaran. waxyaalaha waajibaadka ee qofka lagu leeyahay iyo waxyaalaha qofka magaranaysa uu isagu dadkiisa ku deeqo oo waxyaalo kala gaar wax qofka uu barto wuxuu u bartaa bulshadiisa inuu ku anfaco. taasna Soomaalida waxay tiraahdaa wax qof wax ku siiyo wax badan baa laakiin wax ku sheegay wax badan aragtaa. inaan wax idin sheegno oo macnaha wax badan oo caafimaad ku saabsan idin sheegno waa waxaan uga nim halka fog. idinkana waxaan idin kala daamanaa inaad inta naga qaadataan. iskuulka caafimaadka ee gobolka ka furan waa iskuul ballaaran, dad fara badan baa ka soo qayb gala. waan jecel lahay in magaranaysaa dad caafimaad aad soo tababashiistaan oo aad ku soo dirtaan iskuulada caafimaadka si marka ay ka soo baxaan sida ardaydan kale ay ku timi ay idin anfacaan, caafimaadkana wax badan idinka sheegaan ama wax badan oo caafimaad ku saabsan ay idinka caawiyaan. iyaduna waa mid aad u sahlan in qof caafimaadka barta ama qof caafimaadka ku takhasusa la keenay iskuulka. aan idin leenahay kaliya idinku baraarujinayna waxyaalaha caafimaadka ee la idin sheegay iyo wixii la idin soo koobay waa waxyaalaha koowaad ee nolosha qofka bini'aadanka inay silsilad toos raacdo sababa. waxaana weeyaan qodobka u timaadeen waa qodobka koowaad ee adduunyada ku nooshahay ama xoolaha noqoto ama dad ha noqotee caafimaad haddii la waado waxba ma jiraan. bariga anagu aan ciidamada ahayn tababarkan waxaan ku siin jiray waxa weeye qofka caafimaadka ee cadawga ah hadilin caafimaad haddaan noqdo qof caafimaad oo calaamad caafimaad kale laba dilka wax madno saas uu qiimo gaar u leeyahay. waxa weeye markaa idinku waxa weeyaan dawaasha baana saaran oo dalka waxa u soo barteen caafimaad waadna ku baasantihiin. marka laba waajibaad baana saaran. waajibna waxa weeyaan qoladan caafimaadka oo dalkiina iyo dadkiina wax u soo barateen wuxuu qabtada u dadaala wacyigelin sameeya wixii aad soo barateen caafimaad u sheega
degmooyinka way farabadan yihiin magaalada dhinacyada ka xiga magaalooyinka wada gaara dadka wada geliya qoladan dadka u timaadaan waxa waajiba waxa la wixii aad siisaan waxbarashada iyo duruusa ee wacdi gelina aad yacaha loo sheego inay qaataan oo dhinac walba ay ka qaataan in kor loo qaado caafimaadka casharadii halkaasi ay ka bixiyeen ayaa ardaydu waxay ahaayeen sidii kor loogu qaadi lahaa faraxalka iyo sidii hooyooyinku ay nuujin lahaayeen carruurtooda una dhammaystiri lahaayeen dhanka naas nuujinta geesta kale waxaa si weyn laysula qaatay in laga qayb qaato kor u qaadista tallaalka iyadoo deegaankaasi uu aad uga horeeyo tallaalka iyo xilliyada uu tallaalku soo galo ay dadku si weyn uga soo baxaan cabdikariin olol Somali Channel TV magaalada Kalabayd ee gobolka Sool.